امتحان واحد هيسطو دمي واحد كستو هيسطو على هذا المنظار كويك هداد حول ليدي هداد فقرتي هداد بكتو يسوران انددكو كاسة روي داد حول ليدي نامود انددك يراد كاسة رود لما دابا امتحان باد كجرتاونه واحد مسكحداada in badan ku xidha jawaabta saxa saad markasta u bixin kari lahayd saad sugu day lahayd inaad jawaab sax ka bixiso nolosha adduunyo qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaaadka dadka muslimiinta ku dhacaya inay ugu dhacayaan lahadihi asbaab in dunuubta alla kaga maydho in manzila sare lagu gaarsiiyo Uhud ilaa markuu sababeynay waxa la yiri wala yatakhidha minkum shuhada منزلة الشهادة وبوص لو باهي قفك مسلم كأن لقارتيه لكن ميو قاري هدان دي دقال كدعينه ولا اللينين ما هي ما قاري وين دقال دعا ويددنا الله يهدي للربا بوص شهادين لقارو ولذلك ما إلهي دقالك وحيابه كل سببية وحكم ده وليتخذ منكم شهداء إذن وين إنه أرقنا نولشنا ودمينا امتحان كاسين اللي بدأ وجيون نوليه قفك مؤمن كأنه يندم بقالك غميره boos saro oo jannayn alla uu ku gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala iyo noloshooda in la isku baro tamxiis uu ku dhacay waxay isku fahmayaan kooda kartida la iyo kooda iimaanka dhabka iyo kooda munaafaqa in mashkilaadka kana isku dhex gartaan ibtilaaadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih lacallahum yatadarracuun lilindaar liliczaar akhiiranna daqtatan in cadaabku haleeli doonoon ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay markay buuxsadaan ay booskooda tagi doonaan ilaahay waxaan ka barayaa idinkii anagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi kuwii ku guulaystana alle subxaanahu wa tacaala inuu inooga dhigo waxaan dhammaantiina idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka wanaagsan sababtu waa maxay waa namaadij guulaysatay qofka bini aadamkiina star kama maarmo waxay yiraahdaan nolosh mithil bay isaga baahantay wax ka yara sareeyaad hiigsataad isaga baahantay xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay sida daraadeed bulshada waa in loo sameeyaa dad ay hoogsadaan waa taqaanin maanta dadka waxa loo sameeyay wax nujuum la yiraahdo laguma tilmaamin inay dad yihiin waxa laga dhigay inay xidigayeen xidiga kubadda cagta xidiga shaneemada xidiga heesaaga nujuum walana nujuum nujuumteenu inaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosana kuwaas baa nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa nujuumta ilaahay leeyahay fabihudahu muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaa si naftiinu ay u hesho xoogii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal kuwa guulaystay imtixaanaadka ku guulaystay oo quraanka iyo sunnada ka waramayaan iyo kuwa faashiliinta ee quraanka iyo sunnada ka waramayaan imtixaanka ku guulaystay wayadu nabi daawud iyo nabi sulaymaan ayin kuwa ku guulaystay boqortooyada ama maamulka fircawn iyo namruud iyo qeyrkiina waa kuwa ku saaqiday haduu yahay nabi ayub kuwa nimcada iyo kuwan ku guulaystay qeyrkii baa la soo helayaa kuwa ku fashilay yani nabi kasta iyo tusaale cagsigiisa aad soo helaysaa إلهي وحن كبر ينو حقا إلى وافجي والله أعلم وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم قدق معمولك وحي كعدي دارانيان دي بدعي كدعي محاضردان وقت قد وكديرا كان هوريي sababtoo ay keentay muxaadarooyinkii iyo xilligii qadadii salaada oo isoo riixay dib soo siqay sida daraadeed waxaan moodaa in maaragtay barnaamijkii maanta lagu tala galay iyo waqtigii la haystay ay kala dheeraayeen taana ay keentay maaragtay isriix ka yimid xagga barnaamijka taasu marka waxa weeye guddiga nidaamka waa ka cidi daaranaya iyo maamulka midda kalena waxa weeyaan nadwadii hadda loo fadhiyay ayaduna sidoo kale way doogtay oo waxay dib ugu dhacaysaa xilliyada dambe haddii waqti loo helo maxaa yeelay waqtigeedii waxa weeyaan waa la dhaafay haddana waxaan insha allah wax ka sheegaynaa su'aalo la xiriira mawduucii oo sheekh mustafa soo jeediyey su-aasha ugu horeysana waxa weeye mustafa wuxuu sheekh cumar faaruq noo sheegay inaad haysid warbixin ku saabsan
waqooyiga Soomaaliya oo la xiriirta dacwada iyo nolosha waddanka hadday jirto wax ma nooga sheegi kartaa mana hadday warbixin tahay dee waqti badan bay isaga baahnayd laakiin duuduub ahaan Soomaalidu waa dad afka wax isaga sheego oral society ah maadaama ay dad wax isu sheegayiinna ma aha dad wax ka qarsoomaan sida daraaddeed meel kasta isugu yimaadaanba waa war uun waxa lagu hayaa in badan baana warramayseen baan u malaynayaa mar hadday war uun tahay maalin walbana waddankan waa lala hadlaa ama telefoon lagula hadlayaa hebel ka yimi yaa caynkan kolley meeshaan ka imaadaan tilmaamo dhibaatooyin baa ka jiray dagaallaa meella wax waliba nabadda ayay ku koraan inta nabadi jirto dacwadu way kortaa marka laakiin nabad la waayo wax waliba hoos bay u dhacaan ama dhibtaa badataa intay nabadu jirtay dacwada xawligeedu aad buu u dheeraynayay xoog baan u socday runtii wax badanna way qabatay laakiin markay dhibaatadu timi waxay noqotay inay juhdigeedii oo dhammi isugu tago bal sidii dhiigga qofka muslimkaa loo badbaadin kari lahaa ama islaaxu daati albayn dadka sidii looga samayn kari lahaa waayo magaalooyinka qaarkood dee waa laga guurayba ama way ka dhammaadeen may jirin markaa faslun dambe cidi kama odhanin waayo waxay noqotay meel laga guuro waxa ugu badan ee ay markaasi abnaay saxwa isku dayeenna waxay ahayd sidii dadka nabad looga dhex raadin lahayn ay dhacdo walilaahi alxamd waxaan rajaynayaa inay wax badan ku guulaysteen kuwoodii ugu dambeeyeyna waxaan aada ugu rajo weynay inay ku guulaysanayaan meelihii ugu dambeeyeyna waxaan jeclay usbuucan gudihiisa inuu ka soo baxo wax tilmaamaya heshiis dhammaystiran oo nabadeed inuu dhaco taasina bifadli illaahi subxaana wa tacaala bay ku timi iyo juhuudda dadka isxilqaama ay ka mid yihiin culamada waddanka degani dhanka dacwada ee kale meelaha aanu dagaaladu ka jirin runtii dacwadeedu xoog bay u xoogan tahay bii'ada qaarkoodna aad bay ugu faaftay markii ay joogsatay duruustii rasmiga ahayd ee dhulalyowgii waaweyne ka socdayna waxaa loo fikray bal in loo bedeli karo macaahid in la furi karo litadriib ala'ima waducaat laga soo saari karo a'imo iyo ducaad dadka dib u wacdido oo wax gaadhsiisa iyagana walilaahi alxamdu qaybaa lagaga guulaystay qaybaa soconaya qaybo kalena waa taxta daraasa cumuuman waxaan odhan karaa uun hadday nabaddaasi soo noqoto isbeddel weyn baan rajaynaynaa iyadana ilaahay baanu ka rajaynaynaa subxaana wa tacala inuu xasiliyo wallahu aclam su-aasha kale waxa weeye salaan kadib sheekh waxaan ku weydiin lahaa taygu ama qoorxirku ma dembibaa mase ma aha hadduu dembi yahay waa xadkee dembigiisu waa la harkee waxaan aada uga cudur daaranayaa inay su-aalo dhowr uun had iyo goor soo noqnoqdaan yurub gudaheeda waayo waxaan xasuustaa shirkan ka horreeya kuwii meelahan lagu qabtay inuu sheekh cumar ka jawaabayay inta la weydiiyey taygu muxuu yahay waxaan kasii xasuustaa jawaabtu idin inuu ahaa hadduu wax laysku qurxiyo yahay oo mara yahayna quruxda cidinagama xigto hadduu wax gaalisuga ekaysiis iyo wax kale yahayna waxaasi diinta kuma banaana markaa bal idinku wax ku xukumo baalku hadduu aa leedihiin maalan dadku in badan waxay isku adkeeyaan ficlan waxaa jirta taqaaliid gaaladu ay lahayd oo soo tatawurto marka dambena noqdo shay ijtimaaciya waxaa laga warinayaa ragga qaar inay ku doodayaan in bahalka yare karaafaanka la yidhaahda ee gaarka asalkiisu uu ka yimi maalan aragti ah inuu saliib la xidhanayo dabeetana berigii dambe qaabkan loo dhigayo saasi ragga badh baa laga wariyaa su-aalo caynkaa ku saabsan oo markaa asal diiniya u yeelaya walidalik ba waxaa laiga sheegay nimankan eeraanta inay yidhahdaan xablu shaytaan bay yidhahdaan bahalka gebigiisa oo kuma sheegaane ogaa waxaan uga jeedaa bahalkaasi hadduu maro caadiya iska iyo mara uuna de waa maro haddii afkaar kaloo ka dambaysa ay jirtana waa meel masalada qura anigu aan cabsida badan ka qabaan waxay tahay miyuu yahay tashabuh lilkufaar ragga badh waxay arkeen inaan ahayn
dadka badhna waxay u arkayeen inay xaggaayeen marka anu waxaan odhan lahaa masalada aniga waxba igu xiijinin shiikhiini ku celiya haddana wuu fadhiyaaya isagoo ha ka jawaabo. bismi illah, su-aasha kale waa su-aal runtii aada maanta usoo noqnoqotay oo aada maaragtay dad fara badan soo qoreen. waxaana weeye sheikh ma la ciyaari karaa ciyaarta loo yaqaano shatranji ama iskako? waxyaabaha la ciyaaro waa shatranji ama iskako, ma la ciyaari karaa? su-aashaasuna saaka dhowr jeer bay soo noqotay marka lilahmiya. أسئلة فقهية ما لا واحد كفينا العلماء دي يقول رئيسين لو قد بيه لكن عموما الشطرنج كباهل الله يدعى هذا كل ما ها وقت النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة دي وحي عيار شرين وانا عيار كتمي ضدك غير بريقة بيرشين كي هندي دا يوحاسي عيارها أنا علماء دوي كلا صوعان ووح نصيبك كسليسان نصيب كسليسان وحنا وحيد هذا ووحان كسليسان النصيب كسليسان تخطيط مسكحة ما فكرية وحن نصيبك كسليسان هاي متفقين تبدأ كويننا ممنوعيه يقول حديث كي نردكو دليشنية أما لا دودة إيه وحلها المعنى. ولذلك شيخ شريف عبد النور مركفة وني وحو تلماميا وحالله يقانو تبندا لادودا تربكا قواسي النصيبكو كجرو يعني marka hore waxba lagu qaybinaya waxba nasiib sanays kadib baad wixii ku ciyaaraysa kuwaasi inay mamnuuc yihiin. fatwadiisaasi waxa kamid ahayd waxyaabaha nasiibku ku jirin ee takhtiidka aqliga uu ku yimaada sida shaxdi culimada Soomaalidu inta badan ciyaari jirtay iyo shatranjka bahalkan la yiraahdo waxa la nooca inay banaan yihiin. aymatul fiqh markaan dib ugu noqono ibn kathir wuxuu naqlinaya al-madahib الثلاثه imam ahmad iyo imam malik iyo abu hanifa inay iyagu isku raacsiisayeen shatranjku inuu mamnuuc yahay. al-imam الشافعي isagoo shuruud saddexa u qiraya waxay ka sugayaan inuu karaahiya u arkayo ay waliba ku sii tafsiiriyaan karaahiyadaasi inay tahay karaahatu tanziih ee karaahatu tahriim inaanay ahayn. inta aan ka ogahay ilaa hadda cidda tidhaahda xadiis baa loo hayaa isaga ku soo aroorayna asal ma leh wax xadiisa oo saxiixa oo nabiga ka sugan oo shatran iyo shax ka warramaya xalaal iyo xaaraantoona ma jiro. waxa quraya sugan bacda aqwaali saxaaba iyagoo qolaca ciyaarta inta u yimaadeen yiraahdeen ma hadhihi tamathil allati antum alayha aakifun ay ku tilmaameen. haddii markaasi ay tahay wax keensanaya qofka inay salaadii ka mashquuliso ama colaad abuurto ama caynkan in iska daayaaba ruux. haddii kale ilaa hadda kolley anugu shakhsiyan waxaan u janjeeraa qolada qabta inaanay xaaraan tahayn wallahu aclam. bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا إلهي درتي سيان كو جعلهي وحان كويدينيا امتحانكو وحو كينا وحلا يرادو استريت محاد دواء هدي قفكو اسكو أركو استريت بدن رسول سألكو سوقري يعني هذا وحوية ماركتي شيخا فافين دونات. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيابا دبتو ينقاهي ستوحا كمدا كلي سؤالها دي كرسي الله دقا واحد نوداينو هل كان فرديو كرسي قف ليدا مصدر نو اول يعني نوح والبيقان هو والبكت جوابي كره علم النفس وحبك ما أقانه لكن وحن أبهيمه إنه إلهي كتاب في سكوت المامي ألا بذكر الله تطمئن القلوب دو علم النفس وحكا والرمو يهي نفس بن آدم كي يسال الله حصيليه إلهي القرآن كي سوحي نوغت المامي يهين ألا حسكي إيا ويندي سحسوس سديده إيا أعماش الصالحة سمين تودي بط سقود إنه يتهي وح قلبك وقفك بن آدم كي